rag badan ayaa dunida waxa ay la dhibaatoonayaan kalsoonida naftooda oo hooseysa halka dumarkuna dhankooda waxa ay la dhibaatoonayaan sidii ay ula dhaqmi lahaayeen lamaanaha noocan oo kala ah si guud qofka aan kalsoonida lahayn ficil iyo hadal kasta oo ay lamaantiisu ku tiraado waxa uu qaadanayaa mid ay isaga ku durayso falcelin kasta oo ay u soo geediso waxa uu qaadanayaa mid ay ku dhaliilayso oo ay ku jeesjeesayso maadaama qofka kalsoonidiisa hooseyso uu nuqsaantiisa dusha ka saaro dad kale oo uu ku eedeeyo inay fahamkiisa ka gaabiyeen dadka noocan oo kala ah in lala dhaqmo way adag tahay sidaas darteed waxaan idin soo gudbi doonaa talooyin ku aadan sida loola dhaqmo marka lamaanaha ugu kalsoonidiisu ay hooseyso waa sida uu ku talinayo qabiir dhanka xiriirka ah ee la yiraahdo Marwah Ahmed kala qayb gal dejinta hadaaftiisa nolosha haweeneyda u dhaxda lamaanaha ay kalsoonidiisu hooseyso waa inay kala qayb qaadataa dejinta hadaaftiisa nolosha iyo hadafka wadajirka ee noloshooda waa inay haweeneydu ogaato in nolosha ay ka leedahay yool fara badan oo la doonayo in laga libka iyo riyooyin la doonayo in la xaqiijiyo oo darteed loo doonayo in loo halgamo marka haddii aanu lamaanaha hadaf nololeed lahayn waxay arintaasi sii kordhinaysaa dhibaatadiisa sidaas darteed haweeneyda waxaa laga rabaa inay ku dhiirigeliso inuu hadafkiisa nolosha samaysto tallaabooyinkii lagu xaqiijin lahaa ee hadafka lagu gaari lahaana la dejiyo hadafka ku dhiirigeli hadalka dhiirigelinta leh waxa uu leeyahay muhiimadiisa gaarka ah sidaas darteed dhiirigelinta lamaanaha xilli kasta adiga oo hadal wanaagsan oo macaan u adeegsanaya dhiirigelintaada waxa uu ka helayaa awood agtiisana way ku weyn tahay arrintaasi oo keenaysa inuu dadaal badan ku bixiyo sidii mar walba uu ku raali gelin lahaa oo uu kugu faani lahaa waana midda loo yiraahdo nin kasta oo meel sare gaara haweeney sare ayaa ka dambaysa dareensi qiimaha naftiisa ku dadaal inaad lamaanahaaga dareensiiso qiimaha naftiisa kala hadal xilli kasta guulaha si kasta oo ay u yar tahay iyo wax kasta oo suurtagal ah ee kartidiisa uu ku gaari karo kalsoonida aad ku qabto muujiye inuu leeyahay awood aan cid kale lahayn oo aan loo babac dhigi karin Cabdiweli Axmed Qorane.